mas-uuliyiinta degmada Burco ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay garoon cusub oo laga hirgelinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. garoonkan oo la magac baxay Maxamed Cali Stadium ee magaalada Burco ayaa waxaa dhagax dhigiisii ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Burco, xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka, qaar ka mid ah ciyaartoygii hore ee gobolka Togdheer, gudida gacanta ku haysta dhismaha garoonkani, ganacsato iyo waliba maayirkii hore degmada Burco. waxaana ugu horeyn garoonkani la dhagax dhigay ka hadlay afhayeenka gudida isu xilqaantay dhismaha garoonkani Dayib Xirsi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaynu joognaa oo aynu maanta sugu nimay garoonkii labaad ee magaalada Burco oo maanta dhagax dhigiisu uu ka bilaabmay magaalada Burco. garoonkan oo loogu talagalay inay dhalinyaradu gobolka Togdheer ku ciyaarto kadib markii magaaladu ay ballaaratay oo ay kala fogaatay oo ay aad u weynaatay. sidaa darteed garoonkan oo ay himiladiisa iyo ay lahaayeen gudida iyo dawladda hoose ee magaalada Burco oo wax weyn ka soo qabtay, iminkana wax fara badan ka qaban doonta. waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo gobolka Togdheer ka soo jeeda inay garoonkan oo hawshiisu ay bilaabantay ay wax weyn ka qabtaan, taageeraana dhismaha garoonka. waxaa sidoo kale ka hadlay mid ka mid ah ciyaartoygii hore gobolka Togdheer isagoo ugu baaqay ganacsatada, bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland inay ka qayb qaataan dhismaha si loo dhiirigeliyo dhalinyarada ciyaartooyga ee ku sugan gobolkani Togdheer. inamada dhalinyarada ah ee isku hawlay inay garoon labaad u sameeyaan gobolka Togdheer, taasoo kaliftay baahiyaadkii ciyaartooy ee gobolka oo aad u yaraatay, garoomadii oo aad ugu yaraaday, ayaa dhalinyaradu ku fikirtay maanta inay garoon sameeyaan. fiditaanka fidda magaaladu ayaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa, iyo dawladda hoose oo qayb libaaxla ka qaadatay kana qaadan doonta. dawladda maanta jirtaana ma aha dawladda hoose oo kaliya waxaan ugu baaqaynaa inay garoonka naga taageeraan oo wax nagala qabtaan, waliba dawladda dhexe inay wax nagala qabato garoonka oo wixii talaabadeeda iyo wajibkeeda oo wasaaradda dhalinyaradii isboortiga ee gaarka waliba oo ahay wasiir ilaa iyo kuwa hooseeya inay wax nala qabto. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Xasan Xoday iyo xildhibaan Lakiyo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa iyaguna geestooda ku baaqay in ay ka qayb qaadanayaan dhismaha garoonkani, waxaana ugu baaqeen ganacsatada inay geestooda la qabtaan dhamaystirka garoonkani. iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxaa hadaladoodii ka mid ahaa ama ganacsatada reer Burco ama dhammaantood inaha reer Burco iyagoo runtii aan aragnay iyagoo iskaa wax u qabso iyadoo wada jira runtii danta guud laga wada shaqeynayo oo maanta uu ka yahay garoonkii weyn ee baaxadiisa arkaysaan ee dawladda hoose ku deeqday dhulka qayb weyn ka qaadatay dhisitaankiisa. runtii waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinaynaa dhalinyarada inta ka fikirtay inay maanta garoon runtii degmadu ay leedahay ay qaybtooda ka qaataan, abaabulkoodana ay yeeshaan inta badan. waxa kale oo iyana mahad leh ganacsatada reer Burco ayaa arkayseen halkan inay ku wareejinayeen runtii lacag wixii saacadda ama markaa ay awoodayeen. waxaan halkan ugu baaqaynaa ganacsatada reer Burco runtii inta aan hore uga qayb gelinay inay hore uga mar dambe ka qayb gasho. inta kalena waxaa siiyay dad shicib ah. baahiyaha dhalinyartu qaban way fara badan yihiin. kuwa sportska markaynu ka hadlayno magaaladu way fiday, garoomo badan bay u baahan tahay. garoonkana baahiyihii ayuu qayb ka mid ah dawali doonaa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyarta isku xilqaantay inay garoon dhisato, waanu ku taageeraynaa, waanu la garab gelaynaa. ilaahay iyaguna waxaan leenahay fikirka wanaagsan ay soo jeediyeen, ilaahay ha u fududeeyo, ha ku garab taagannahay. wax kasta oo dhalinyarta la doonayn lala qabto waanu la qabanana, waana ku garab taagannahay. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer ayaa ugu deeqay garoonkaasi lacag gaadhaysa $3,000 Mareykanka ah, taasoo ay ugu wareejiyeen afhayeenka gudida gacanta ku haysta garoonkaasi. anigoo ah qayb ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer, halkan waxaan ku wareejinaa lacag dhan oo $3,000 gudida u qaabilsan lacagta Dayib Cabdi Xirsi. أنا maamulaha dugsiyada national magaalada Burco, maadaama aanu nahay bahdii waxbarashada ee dhalinyarada ay hoos imanaysay. waxaan maanta ka qayb qaadanaynaa oo aanu ka maamul ahaan ku baaqaya maanta inaan kun loo jaajuura ku dari doono fayskan koobaad. وبروقادن محمد